geeriyootay 14 bishii Abriil ay geeriyootay habeenkeedii. waan gartay marka maxaa ku dhacay walaalo nabad bay nooga tagtay xaafad yar oo halkaan aroos bay aaday nabad bay nooga tagtay aqalkeedii way tagtay casho u diyaarisay gurigii hagaajisay safar baan aadayaa ku yiri boorta dhar ugu dirtay meel daarada laba joodari dhigtay daarada iyadoo jiifto ayaan annaga xabadad waa noo dhowdahay guriga saddexaad bay naga tahay xabadaan maqalna walaal ma garan waa gartay xabadii haddaan maqalnay teleefon baan qaadanay maamada iyada dhashay ee degan ah baa wacday hadday wacday iyada ay wacday gabadhii nambarkeeda waa la qaban waayey marka hore feeriska horta waxay wacday nambarka wiilka uu ka qaban waayey nambarka gabadha ay wacday waa la qaban waayey hal gabar oo inuu yar haysato xaafada joogtay ee guriga la deganeed bay wacday gabadhaas ay wacday waxay tiri hooyo cabdullaahi baa la dilay xabadaa yeeraynama garan cabdullaahi ma gabadha wiilka qabaa la yidhaahdaa cabdullaahi asad baa la yidhahdaa ma isagaa la dilay waa tiri maya hooyo waxaa la dilay ma garan gabadhii baa la dilay muxudaa la dilay mooyaane ninkii lama dilin bay tiri yaa dilay ninkeedaa dilay tiri ma garan waa garta waxaa dilka fulinaya waa ninkeeda ninka qaba waa walaa ninka qaba waaye oona u guurinay oo naga soo doontay oo kalgacayl ay u keentay ma garan sababta oo u dilay waa maxay wallaahi sabab uu u dilay wax hadda gabadha haddaan weydiino wax xumaan oo ka dhexeeya ma jirto way tiri farxad bay ku wada joogaan aniga naftirkeeda meel makaayadan lahaa buu iigu yimid casirkii anoo dambe la joogo wuu isoo salaamay waxaan idhi dhawaanahan kuma arkin wuu yiri safar baan u socdaa inaan ku sagoodiyaan rabe waayahay macsalaama yidhi allah ku aruuriyo waxaa iigu soo xigtay baa cawadii markaa imaaday cishihii maqrib dhexdoodana hadee xabadahaas oo yara walwal aan isaga ka qabnay oo isaga amaa la dila aan lahayna waxaa noogu xigtay gabadhiinaa la dilay haddaan u tagnana dil falxumoho iyadii ay jiifto maskaxdeeda ay daadsan tahay dhiigeedii dhulka yaalta waad garan kartaa qofu dadi dhashay nabadkooda kaliya macnaha waxaa ii sheegtaa waxaa igu tiray safar inuu aadayo buu u sheegay gabadha allah u naxariiste kadibna aniguba ii sheegaba iyaduna wuu ku wargeliyey sooma inuu safar yahay casada u diyaarisay aa taallay dharkii oo boortada ugu gurtay aa yaalay iyadii joodarigii u gobasho banaanka kuleelaha inay saxdaan boglaneed joodarigii way ku jirtay ma uusan kicinin darkii ku dilay markaas isaga ma soo baxyo guriga ma ka soo tegay oo dib buu ugu soo laabtay mise intuusan soo bixin buu dilka dhacay maya ilbaabku soo gargaraacay tiri gabadha guriga la deganeed anigaa ka furay tiri iyada way huriday gurigiisii u mooday wuu soo baxay haddana in yar buu maqnaa haddana wuu soo gargaraacay waan ka furay tiri gabadha mar saddexaadkii qoriguu la soo baxay guriga wuu koongaraystay iyaduu dul istaagay erey waxaa ugu dambeysay tiri isagoo dhahay miidaanyo dhega malag dhawaaqay woona kusii daayay artaas guriga imise qof ayaa ku nooleed guriga waxaa ku noolaa iyadii isagoo 3 qol ka deganaa gabar cunug yar haysato iyo ninkeeda wuu maqnaa iyadana uurna yarna way lahayd cunugaas yarna way haysato cunug yar hataa marxuumadu agjiifay waan garta marka caafimaadka ninka wax dilayahay oo gabadha qabay waa sidee waa buuxa caafimaad kaamu qabay annaga de nin nabada caafimaad qabaan gabar ku darsanay nin nabada caafimaad qabana hadee ninka gabadhi waa naga wasay annaga gabar waxaan u geynay yaroo ilmo yar ahayd baan u aroosinay hadda gabar meedna waan soo ceshanay soo ma askari buu ahaa mise askari ma ahayn ciidamada jubbaland ka tirsan ciidamada jubbaland weliba kuwa ugu sarreeya ka tirsanaa waxa ay sheegtaa wax haba yaraatee xurguf ama isfaham waa ama khilaaf u dhaxeeyey oo waayadan soo taagnaa ama geerida gabadha kadib lagu sheegay ma jirta may wallaahi annaga xumaan xirfada firadu noo soo sheegi jirta si xumaanoo waxa dhaxeeyey ama wax isaga uurkooda ku jira annaga allahan allah aroos bay aaday guri agteena ah meeshaas saaray gabdhii ka imaadeen horbeeda u moodada aqalkeeda bay tagtay ma garata waxaan noogu soo xigtay meeskaas arooska markay aadaysay muxubo allah u naxariistay ninka ma joogo guriga annaga gudaha dad guri degan waayo kolley dad guri degan waayo annagana guri kalean deganaa marka wixii nin inadkiisii iyo fariimaha u dhexeey annaga ma garan karno allahu aclam warasuuluh waayahe maxaa idiin soo baxay markaa baarteen oo gabadha kale guriga la degan iyo familka aad wax weydiiseen wax haba yaraato tuhun oo idiin soo baxay ma jirtaa walaal waxaa noo soo baxay arooska ee aaday reerka arooska ee aaday inuu hadda ka hor foorka doortay gabadhii diidana ee magaalada kasotay ee ciddaas isaga xurguf uu xumaana uu u hayo ma garan
ma cidda arooska ay gabadha uu qabay u aaday iyo wiilka gabadha qaba ayaa dagaal u dhaxeeya muran gabar buu hadda kahor ka doontay gabadhii baa ka tagtay oo ka carartay markuu arooska soo dhawaa gabadhii baa magaalada kusoo noqotay reerkoodina way ahayd meesha arooska qabay ma gabadhii baa la guursanayay mise gabar kale maya walaasheedaa la guursanaya iyadii magaalada kusoo noqotay ma garan waxaa iga warataa muxibo allah u naxariistay qof nuuce ayay ahayd xiriirkeeda ma qof xirxiran ma qof furfuran qof nuuce ayay ahayd muxibo qof furfuran oo shoosal ah dhalinyaro iska ah habi iska ah ummadii oo dhan annaga iska daay soomaali weyne ka dhimatay muxibo soomaali weyn annaga keliya ma nihin soomaali weyne ka dhimatay waayo canugu yaraayo ka geeriyootay ka waran yaa haya cunuga iyada maya cunuga waxaa ahaa maxaa la dhahayay cunugii iyada ma dhalin gabadha guriga la degan ayaa dhashay ma garatay iyadoo ilmo yar hadda uur ay la dhigay ninka wuxuu isku dilay ilmihiisii imise ayay 4 biloodaa la qabay 4 biloodna ilaahay aroos uur loo dhigay waayahay ilaahay u naxariistay waxaa iiga sheekaysaa maxaa dadaal ah ninkii dilka geystay gabadha qabay ee wiilkiinii say yeesheen way soo qabteen khayr allah siiyo wuuna xiran yahay iyagaan u fadhinaa sharciga islaamka ka qabo iyo dawladeena aan ku hoos noolnahay iyaga ka qabaan iyo iyagaasaan dirsana iyagaana ka warsugaynaa wax hadda oo warar hordhaca waad helaysaa ma jirtaa inta la weydiiyey sababta gabadha u dilay wax uu soo sheegay miyaa hesheenoo war ah baaritaan ayay sameeyeen saaka way ii imaadeen aqalkii waan isla tagnay marxuumadda way arkeen joodarigii ay jiiftay jiiftay dhiiggii xinjirihii maskaxda inta way arkeen ma la caasay gabadha mise waa weli waa aasno walaal waa ciidamada baaritaanka sameynayo ninka markay la kulmeen su'aalo weydiiyeen maxaan kala kulanaaba ayay ku dhaheen maya walaal waaye arrin ciidan ka dhexaysa arrinta ciidankana shacib looma gudbin karo laakiin annaga codsi waxaan ka rabnaa dawladdaas iyagaan wakiilanay iyagaa garab noo ah maxaa la dhahayay iyo shareecada islaamka waxay ka qabtay inka badan ma wadanaa muxibo maxamed guure ayaa la yidhaahdaa markaan aroosinayna waxay ahayd 17 jir 17 jir haddana waa sanadkii 18 oo afartaas bilood walaal waxay geeriyootay 14 bishii abriil ay geeriyootay habeenkeedii waan gartay marka maxaa ku dhacay walaal nabad bay nooga tagtay xaafad yar oo halkaan oo aroos bay aaday nabad bay nooga tagtay aqalkeedii way tagtay cashay u diyaarisay gurigii way hagaajisay safar baan aadayaa buu ku yidhi boortay dhar ugu gurtay meel daaraday 2 joodari dhigtay daaradda iyadoo jiifto ayaan annaga xabadad waa noo dhowdahay guriga 3aad bay naga tahay xabadaan maqalna walaal ma garan waa gartay xabadii haddaan maqalnay teleefon baan qaadanay maamada iyada dhashay oo eedadeen ah baa wacday hadday wacday iyadii ay wacday gabadhii nambarkeeda waa la qaban waayey marka hore feeriska horta waxay wacday nambarka wiilka uu ka qaban waayey nambarka gabadha wacday waa la qaban waayey hal gabar oo cunug yar haysato xaafada joogtay oo guriga la deganeed bay wacday gabadhaas ay wacday waxay tiri hooyo